siyaasi Cabdiqaadir Cali Obsiye oo ka mid ah siyaasiyiinta reer Somaliland oo maanta wareysi gaar magaalada Hargeysa ku siinaya telefishinka caalamiga ee Bulsho ayaa ka hadlay ciidamadii dhawaan ka goostay Somaliland isla markaana ku biiray maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland iyadoo gobolka Badhan ay gabi ahaanba la wareegeen gacan ku hayntiisa maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland taas oo ku tilmaamay mid dhabarjab ku ah xukuumadda Somaliland waxaana hadaladiisi ka mid ahaa horta runtii waxaan u arkaa xaggan waayahan dambe istaraatiijiyadii ama siyaasadii arrimaha gudaha inay waddanka waxaad moodaa inay hoos ay u socoto taasaana sabab u ah baan u arkaa horaanan ugu sheegay anu biro waqti horaan ka hadlay waxaan ku yiri madaxweynaha xilku wuxuu u baahan yahay garasho iyo gudasho ciddii garan weyda ciddii gudan weyda xilkeeda in aad tallaabo ka qaadid oo isbedel ku samaysid baa loo baahan yahay baan horaan u soo jeediyay looma baahna saaxiibtinimo iyo maxay ahayd nin jeclaysi horaan u soo jeediyay runtii taas imankana tiin baan leeyahay waxaan kaloon u arkaa dadka kolba dhinaca u yaacyaacaya ninbaa Soomaalida waxay ku mahmadaa ninbaa wuxuu soo arooriyay ari dabeetana laxu jeclaaba biyo cab weyday baa leeyahay marka biyo cab weyday ayuu ku yar khasab hoostu u yara gali madaxu qabto saas u yara galiyay way baqtiday intuu islaha waxa cabto saas uu tuuro wuxuu markeeda horaan naf leeyman buu waxaan qabaa dadkaas inaan markii hore dad go'aan la'aan ahayn dadka kolba dhinac u yahay waana waxyaabaha aakhirta marka ama muddadan dambe ku cusub wadankeena iyo dalkeena iyo adduunyadaba ayaan qabaa anigu markaas taas ayaan leeyahay sidoo kale waxa uu ka hadlay sawir-baraha bulshada qabsaday oo uu dhawaan madaxweynaha Somaliland la galay qaar ka tirsan golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya waxaana uu yiri ana aragtideedu waxay tahay in la wada hadlaa waa daruuri weeyaan ay dad kala Soomaaliya waxa ku mahmaadaan doqon hadii la ficilto in la kala tagayaa bay moodaa in la wada hadlaa waa muhiim weeyaan dad isaabaynahay dad isku dagalabaynahay isku diira isku dada oo isku diina marka hadii la wada hadlayo waan soo jeedinay in badan in la wada hadlo taasina xaram baabay ahayd oo xaramkii Ilaahay baabay ahayd oo in la gacan qaado in la salaamo in la islaab xaado in la isku soo dhaweeyo waa waajib baan leeyahay anigu taas laakiin sawirkaas waxaan qabaa anigu sawirku wuxuu tusinayaa in wada hadal ama heshiis u jiro ayuu aniga fikrahan tusinaya waayo dadku hadaanay wax ku heshiinin ama aanay wada hadlin sawir ma wada gali karaan laakiin hadii la isqaacan qaadayo ama la wada hadlayo ama la salaamayo inta la salaamaad la isdhaafaa laakiin waxay ku wada hadleen in ummadda u soo bandhigaan ummaduna way ka sugaysaa in la wada hadlo waana soo jeedinayna wax mushkiladii dib kuma jiraan marka anigu saasan qabaa insha Allah wallahi anigu waxaan qabaa horta dadku bini aadamku waa xaweeyaan geelaba jir soo wada marbaray caalamku soo wada maray halkan aynu marayno inaga waaba colaada inaga soo dhex martay wax yar bay ahayd marka caalamku loo qarba 100,000 oo qof iska dilay وهذا هالشيء ما يعني ده واحد قبسناية أنا ما قبوا إن هذه لعلي تما أما الله تجعله إن لقوك اللي تجيه ما قبل لكن إن لقى شيء ووحي حلا تلعبة هور الواقع ضايع أنا صوت شيء دنيا. جستك لو واحد وزارة أرمها جودها الصومالي لانكو عنانت إنه كجابسي حوشي قرن كأوهيسي وأنا كان يسقو أرمها سكها الليا. waxaan horena dawaan ugu baaqo waxaan leeyahay arintaas in madaxweynuhu wax ka qabto ayaa fiican ayaan soo jeedinaya anigu dadkana wariga ka hadlayo bini aadamkun marka hore aanay go'aan la iman oo hashada Soomaalida ku maamahada hasha labada geel jecel dhexdeeda waraaba ku cunaabalay dadka marna xagga u sii socdo marna xagga u soo socdo anigu waxaan kula talinayaa inay go'aan iyo hammi iyo aragti fog inay yeeshaan baan iyo go'aan adag inay yeeshaan baan anigu dadka soo jeedinaya oo ku adkaystaan halkooda waayo nin sabraasadkii waa helaa tan mood ka seereen bareen waxa uu fiican qofku waxa kale Soomaalida ku maamahada halkaad ku meedato waa lagu ingegsadaa qofku haduu xil qaado mas'uul yahay nin rageed yahay waxa fiican meeshu joogo inuu ka muuqdo waxna ka qabto oo ku sabra loo baahan laakiin kolba inaad dhinac u cararto waa hasha labada geel jecel un baad noqon doontaa in dhexdeeda waraaba kugu cuno marka anu wax qiimo leh ma laha dadka kolba dhinac u yaacaya laakiin madaxweynaha waxa soo jeedinaya inuu istaraatiijiyad cad iyo siyaasadda arrimaha gudaha inuu dib maaratay oo hagaajiyo runtii iyo dhammaan hay'adihiisa maxay tahay hay'adihiisa dhamaantood in maartay wixii shaqadooda ka soo bixi waaya aan ku xishoonin ama aan u eegin nin jeclaysi iyo maxay tahay saaxiibtinimo iyo maartay wax kale aan u eegin in wax ka qabto oo ummadda hore u wada baan ugu soo jeedinay hogaamiye wanaagsan oo la yimaado Axmed Maxamuud Cumar Axmed Dayax wararka telefishinka caalamiga Bulsho Hargeysa.